waagaag daawadayaal waxaan ku suganahay aagga xeebta liido ee magaalada muqdisho agagaarka hotelka Elite oo uu galabta casir liiqi ka dhacay weerar ururka al-shabaab ay ku soo qaadeen baabuur walxaha qarxa lagu soo raray ayaa marka hore hotelka lagu weeraray dabadeedna waxaa galay koox hubaysan oo markaasi hotelka gudihiisa ilaa iminka ka dagaalamaya dhimasho iyo dhaawac ayaa jirta oo hotelka dadkii ku sugnaa soo gaadhay waxaana ilaa iminka hadda halkan nagala hadlay ka socota dhabarkayga dambe oo hotelka ku yaala weerar toos ah oo ay markaasi israsaasayn toos oo ay adeegsanayaan ciidamada dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ciidanka hay'adaha nabadgelyada Soomaaliya iyo ururka al-shabaab xubno ka mid ah oo ku jira gudaha hotelka Elite waxaana la ii sheegay in ay jiraan dhimasho iyo dhaawac ka dhalatay khasaaraha ka jira halkan iga dambaysa hotelka Elite ee ku yaala xeebta liido ee magaalada muqdisho sawir guud haddaan ka bixiyo hotelka Elite waxa uu ka kooban yahay ilaa iyo dhowr dabaq afar dabaq oo kale ayuu ka kooban yahay xeebta liido ayuu saaran yahay waa hotelka marka loo eego hoteelada kale ee magaalada muqdisho ku yaala midka ugu muuqaalka wanaagsan ee ku yaala xeebta liido ee magaalada muqdisho galabta 5:00 saacadda markay ahayd ayaa koox hubaysan oo marka hore baabuur lagu soo raray walxaha qarxa waxa ay ku weerareen hotelka ilaa iminka waxaa jirta khasaare kala duwan oo soo gaadhay dadka ku sugnaa hotelka oo ay ku jireen xubno ka mid ah bulshada Soomaalida oo si gaar ah loo yaqaan suxufiyiin iyo wasiir dawlad ka tirsan maamul kala duwan oo hay'adaha dawladda Soomaaliya u shaqeeya oo markaasi hotelka ku go'doomay ciidanka ammaanka dawladda ayaa ku dadaalaya dhowr mar oo aan halkan ku aragnay dad meydad ayaa jira sida loo sheegay dhaawacyo kala duwan oo kooxaha gurmadka degdega ay halkan ka soo qaadeen oo jidka la soo marsiiyay oo loo qaaday cisbitaalada magaalada muqdisho ayaan indhaheena ku aragnay hotelka Elite caawa waxa ka jira waa xaalad u adag ciidanka ammaanka dawladda iyo minkana waxa noola xaqiijiyay inay jiraan dhaawacyo iyo dhimasho sida idin muuqata kooxaha gurmadka dawladda hoose ee gobolka Banaadir waxa ay wadaan gurmadyo degdeg ah oo ay dadka ku badbaadinayaan waxaan idin soo gudbin doonaa hadba xaaladda meesha ay marto laakiin jawiga hay'adaha amniga waxay noo sheegeen in sidii hore uu ka wanaagsan yahay oo uu degan yahay wixii warar ay ku soo kordha telefishinka Universal ayaad kala socon doontaan oo aan idinkaga soo tabin doonaa xabadda wali way dhacaysaa hotelka Elite waa ay ka dul dhacaysaa gudihiisa waxaana saaran ciidamada amniga oo markaasi isku dayaya inay soo badbaadiyaan dadka halkaasi ku go'doonsan ka soo qaadina xubno ka mid ah ayaa wali dagaalamaya bambooyinka iyo qoryaha gacanta laga maqlaya xogaha iyo warbixinada ku saabsanna waxaan idinku soo gudbin doonaa telefishinka Universal waad mahadsantihiin